guddiga ka tala bixinta ururo siyaasadeed in la furto iyo in kale ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo shalay maanta ku joogay booqasho magaalada Boorama ayaa waxa ay kulamo kala duwan maanta la yeesheen ardayda jaamacadaha Camuud Eelo iyo aqoon-yahano iyo dadweyne kale oo fara badan. Guddiga ayaa waxa ay dadkaasi markaasi ugu soo bandhigayeen qaabka ay markaasi dadku u arkaan in ururo siyaasadeed la furo iyo in kale. Wareenalkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal oo guddigaasi isagu ku soo dhaweeyay isla markaasina sheegay in ay marti maanta iyaga loo yahay oo ay markaasi leeyihiin wixii awooda. Waxa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga ka tala bixinta ururo siyaasadeed in la furo Suleymaan Yuusuf Cali Koore oo isaguna markaasi ka hadlay ujeedooyinka ay u socdaan iyo waxyaabaha laga rabo sida ay tahay. annaguna waxaan nahay guddiga dadka ka ururinaysa oo u muuqata inaanu madaxweynaha u noqonay gacan yare u soo gudbiya fikirka ay dadku qabaan Soomaaliya marka aanu u gudbinayna go'aankiisa dastuuriga aan ka gaari doonaa marka fikirkiinu saasuu muhiim u yahay. ra'yi ururintu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha lagu ogaado fikradda dadku dhinaca ay u badan tahay. guddigan uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland waxa ay taladoodu tahay oo ay ku ururaysaa halka ay ku dambeyn doonto ballankii xisbiga kulmiye uu qaaday markii uu mucaaradka ahaa ee ugu jiray ololaha doorashada. qaabka dadka loo soo xulaya ayaa iyadu waxa ay ahayd mid ay markaasi dadku codeynayeen oo ay markaasi warqad loo dhiibayay oo ay markaasi ku kala dooranayeen ha maya iyo midnaba ay saddexdaasi midkood calaamadinayeen iyaga oo markaasi kadibna sababeynaya qaabka ay tahay. mas-uuliyiintu markii ay hadleen kadib ayaa saxaafadda iyada goobta laga saaray oo aan loo ogolaanin taasi oo keentay in salaadiinta qaarkood ay markaasi goobta ka baxaan sida Suldaan Suleymaan Cali oo isagu sheegay in saxaafaddu wax kasta oo meesha laga sameeyo ay goobjoog ka ahaato. taasan ka cadwood waa saxeeyay taasan meesha uga baxaya saxaafad kaliya maqlaysan maxay tahay mataasan yeelaan qaata odayaasha xataa waxa qori karayaan saxaafadaha hadii la saaran ma geliyaano hatta sheegay laakiin gudoomiyaha guddida Mudane Suleymaan ayaa mar dambe shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu saxaafadda ugu sheegay in dhammaanba gobolada dalka ee lixda ay soo mareen isla markaasina arintoodu ay gabagaba ku dhowdahay oo ay ku wareejin doonaan madaxweynaha Soomaaliland. soo maray lixdii caasimadood ee lixdii gobol ee Soomaaliland ka kooban waxaanu ku noqon doonaa Hargeysa hadii Ilaahay naftayno daayo sida ugu dhaqsaha badan ayaanu ugu gudbin doonaa go'aanka madaxweynaha. xisbiga talada waxa weeye waa xisbiyada kamid ah Soomaaliland. guddigani xikmadiisu ma ahayn xisbi. guddigani wuxuu ahaa guddi qaran oo ka kooban bulshada noocyadeeda kala duwan oo 20 xubnooda xisbiyada 6 qof kaliya ka socday 14 qofna waxay ka socdeen Soomaaliland tan kale marka xikmadu ma aha haddii 2 iyo 3 iyo 4 haday guddiga ka tagto hawshii waa la wadanayaa madaxweynuhu sidoo sheegay waxa lagu shaqeynayaa codka haldheeri. Xasan Ciise shabakada wararka Sirel News magaalada Boorama.